الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهرين هرتا محو هاي waxaan si gaar ah mahadnaq gaar u jeedinayaa xafladan محو هاي intii abaabushay yaan mahadnaq gaar u jeedinayaa mahadnaq labaad waxaan jeedinayaa waxaa dumarka oo runtii dhaqdhaqaaq fiican muujiyay dadaal badan muujiyay محو هاي dumarkuna waxa weeye waa halkii qoysku ka dhismayay bulshadu waxay ka dhisantaa qoyska ka bilaabata qoyskana hooyadu ka bilowdaa hooyadu markay nolol bilowdo ummaddu noolaataa marka haddii dumarkii ay noloshan keeneen iyo abaabulkan iyo dhaqdhaqaaqan keeneen marka halkaa waxaa ka muuqanaysa inay muxuu ahay ummaddii gurguruhu ay noolaanayso waa noloshu halkay ka bilaabmaysay yaa ah hooyada iyo ama qoyska marka mar haddii noloshii hadda ay ka imanayso xaggii hooyooyinka ay bilaabeen xarakaadkan marka nolol baa muuqata iyo mustaqbal wanaagsan inuu soo socdo marka iyaguna si gaar ay u mahadsan yihiin sabaabulka ay sabaabuleen midaba way wadeen annagu dhegta baan ka maqlay iyaga muxuu ahay noloshaasi markaa waxay gaaraysaa nolosha qoysku ama hooyadu markay noolaato caruurtay gaaraysaa aabihii bay gaaraysaa baraarugu markaa wuu is wada gaaraya marka waxaan leenahay muxuu ahay dumarka halkaa ka sii wada qolyaha dibaddana waxaan leenahay dumarkaas waxay u baahan yihiin gargaar gacansiin bay u baahan yihiin idinkuna muxuu ahay runtii xaraka ayay ka muuqata qolyaha dibadda marka inay dumarka iyaga ah ee nolosha cusub hadda abuuraya waa muxuu aasaaskii qoyska waa aasaaskii nolosha iyagana in gacan lagu siiyo muxuu ahaa ayaanu ka codsanaynaa iyagoo dadaal badan beryahanba wada oo muxuu ahay intii kalena markaa ay ku wada dayanaysaa marka waxaan leenahay bulshadu tu dibadda iyo tu gudaha markay wada qabsato ayay horumar gaari kartaa marka arrintaa la bilaabay waxaanu jecel lahay waxaan muxuu ilaahay ka baryaynaa inay noqoto loo aayo oo guul weynna muxuu lagu gaaro horumar weynna lagu gaaro waad mahadsantihiin